ka qaaday in go'aan kaga yimid madaxweynaha Somaliland awgeed uu uga tanaasulay jagada maayirnimo oo uu mar labaad u tartamayay. tala soo jeedintii madaxweynaha ka bacdi waxaan ku qancay inaan ka noqdo hankaygii ahaa inaan u tartamo maayirka caasimadda. taasoon leeyahay xildhibaanadana aad baa u mahadsantihiin. waxaa kaloo aan u mahad celinayaa madaxweynahayga tallaabada ay soo jeediyey. intii uu hadalkiisa sii watay maayir Soorteelko waxa uu soo hadal qaaday saaxiibkiisii hirdanka culus ay ugu wada jireen jagada maayirnimo ee Cabdikariin Axmed Mooge. waxaan halkan uga hambaliyeynayaa saaxiibkay Cabdikariin Axmed Mooge oo ah ninka aan uga tanaasulay inuu noqdo maayirka caasimadda. runtii waan ogahay taageerayaashayda way ku adag tahay mudday soo xarbiyeen, laakiinse kursigu laba uma qaybsamo. kursigu qofunbaa ku fadhiista. haddii aan la isu hanayna waxay noqotaa foolxumo. taa si ayna u dhicin waxa aan ku qanacsanahay inaan walaalkay Cabdikariin Axmed Mooge oo muddo 30 sano ka badan aanu saaxiib ahayn aan uga tanaasulo. Cabdikariin colaad inagama dhaxayn, waxa weeye tartanka kursiga anna aan ku fadhiyey isna uu doonayay inuu soo fuulo buu ahaa tartanka naga dhaxeeyey. Cabdikariin Axmed Mooge waa shakhsiyad aad u wanaagsan, aanan aaminsanahay inuu hanan karayo kursigaasi. waxaan leeyahay Cabdikariin Axmed Mooge wuxuu wax ku noqonayaa filashada badan ee ka filaysaan iyo ballanqaadku sameeyey shacbigu hadduu cashuurta bixiyo. dhinaca kale Cabdiraxmaan Soorteelko waxa uu si gaara ula hadlay dhibaanadii sida weyn u taabacsanaa intii uu hirdanka ugu jiray jagadani uu maanta ka tanaasulay. waxaan leeyahay taageerayaashaydii inay saa ku qancaan. saaxiibaday xildhibaanadana waxaan leeyahay inaynu 17 bisha Cabdikariin u wada cumaamadno u caleema saarno inuu maayirka noqdo magaalada. anugu ka tagi maayo golahayga, waan golahayga dhex fadhiyaa, odaygii magaalada iyo maayirkoogii oo noqonaya. sidaasaanan insha Allah taala ku dhex joogaya. dhinaca kale Soorteelko waxa uu